بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan rabaa inaan idila socodsiiyo inaynu barnaamij ballaaran oo qiimo badan oo aan ku dhiirigelinayno kuna sagootinayno kuna soo dhaweynayno u sameeyno walaasheen Farxiyo Yuusuf Xirsi Farxiyo Bilig oo ka tirsanayd muddo fara badan dawladda Puntland ahayd wasiir ku-xigeenkii wasaaradda haweenka sidoo kale ka shaqeysay arrimaha civil society-ska u qareenta dadka la hayb sooco oo aan xaq iyo xuquuqtoona u lahayn in la hayb sooco oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed حق iyo xuquuqna u leh inay qayb ka noqdaan sida dadka caadiga ah ee Soomaaliyeed u dhaqmayaan nolosha u maareynayaan xaq iyo xuquuqda bulshada Soomaaliyeed ay helaysan ay u helaan balse dad wax ma garataa ama aqligu daciif ka yahay ay ula dhaqmaan sidii inay dad ay ka tirbadan yihiin ama ay ka wanaagsan yihiin ula dhaqmaan oo aan diinta iyo islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed meelna kaga jirin sidii ugu doodo way u ilaaliso xuquuqdooda in maarta dadkaasi laga daayo mowqifka iyo fikirka khaldan ee daciifka sidoo kale Farxiyo waxay ka mid tahay ururada bulshada ee ka shaqeeya gobolka Mudug Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya maanta waxay u tartamaysaa ama ay raadinaysaa kursiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya loogu matalo Puntland ee ah xildhibaan waxaan xaqiiqdii hubaa Farxiyo inay u qalanto inay ay mudan tahay sideedaba ummadda Soomaaliyeed qofka wax qabtay wax ma siiyaan qof aan waxba qaban ee mala yacni ay kuraasta ku sharfaan waxaan leeyahay Farxiyo iyo dadka la midka ah ee gabdhaha ee matali kara gabdhaha ee wax la soo tijaabiyay ee shaqooyinka qabtay ee bulshada wax tari kara xilalka loo doorto waxaan leeyahay odayaasheeda iyo cid kasta kursigeedu ku xiran yahay waxaan leeyahay Farxiyo doorta waa gabar tijaabsan waa gabar la hubo waa gabar u qalanta anaga dhiirigelinta iyo awoodeen waxay tahay inaan xaflad u sameeyno caawin u sameeynaa waxaan rajaynayaa inaad la socon doontaan muuqaalkaas aan ugu sameynayna hadana anaga Tag Foundation oo ay xubin naga tahay runtii qiimo leh oo dadka maarata arrimaha bulshada anaga xafiiskana taag ahaan waxaan runtii karnaa inaynu gabdhaha wax tarka ay macnaha leh ee bulshada wax u qabtay ee la tijaabiyay iyo dhalinyarada inaynu dhiirigelino garab istaagno taageerno bogaadino dhiirigelino cid kasta oo kursigooda ku xiran yahana aan ula qareeno inay kursigaasi ay ku sharfaan xubnahaasi oo ay siiyaan si markaasi dad wax qaban kara oo wax tar leh dalkan iyo dadkan runtii kuraasta ay u matalaan ama ay u noqdaan mas'uuliyiin ama hogaamiyayaal anaga markaa iyo dhamaanba gudida ay ka tirsan tahay waxaan runtii kaliya u awoodnaa inaynu Farxiyo dhiirigelinta u sameeyno caawa xafladaas u sameeynayna insha Allah idinkuna qayb ka ahaan doontiin waxa weeyaan waxaan kaliya idin karabnaa inaad fikirkan gaarsiisaan bulshada iyo inaad maartay idinkana fikirkiina iyo taladiina iyo taageeradiina nala wadaagtaan waxaan leeyahay nala daawada barnaamijkaas iyo sidoo socon doono iyo howlka xafiiska Tag Foundation waxqabadkeedii wasaaradda iyo dalka oo dhan waa laga dareemayaa waana uu ka taagan yahay cidda ay si gaar ah u horumarisay oo ay uga shaqeysay inkastoo dadka oo dhan u shaqeynaysa waxa kamid ahaa dumarka oo u baahan in garabsiin fara badan la siiyo yacni garab fara badan la siiyo waxaan hadda marka aan doodaha ka qayb gelayo dadku aad bay waxay yiraahdaan dumarka aad u taageertaay oo aad u dhiirigelisaa ha waa run waan ku faanay inaan dhiirigeliyo aad laakiin doodaha aan ku doodo badana fikradaheedii qayb ka mid weeyaan oo markii ay ka hadli jirtay idaacadaha markii ay doodi jirtay waxyaabihii ay ku hadli jirtay ay ka doodi jirtay arrimaha ay ku fikri jirtay waxa ka mid ahaa oo aan xasuusto oo aan dhowr jeer xataa ka sheekaysanay gabdhahan shaqada marka ay tagaan xataa lagu dhibaateeyo ayay u sameysay barnaamij lagu garab siinayo oo hay'adaha la booqanayo xafiisyada la tagayo lagu kormeerayo sida looga shaqeeyo oo in uu dhaco tacaddi inuu ka dhaco xafiisyada ay ka ilaalinaysay marka waxaas oo dhan waxay ahayd contribution ay gobolka gashanaysay iyo waxay qabsanaysay waxay maanta u baahan tahay garabkeena waxay u baahan tahay inaan ku garab siino kursigaas oo aan hubno anigu aan hubo hadday tagto inay wax badan Soomaali oo dhan u qabanayso
wax badan ay ka qabanayso xaaladda dalka oo ay yacni loo keeni doonto ugu yaraan waxa ugu horeeya aan ka dareemi doono waxa weeyaan xitaa doorashadeedu waxay noo noqon doontaa qof ay ku doorato yacni dalkan waxqabadkiisa iyo taladiisa barnaamijyo fiicanna way curin doontaa waxaan filayaa hadday golaha noo tagto insha allah wayna noo tegi doontaa in guulo badan ay ka iman doonaan oo weliba horumar dadka qiimaha leh ee bulshada ugu badan haddana dadku ay yacni waxyaabaha aan la horumari weyna qaybta ka ah inaan geeska gelinno oo gabdhaha inay aada u horumarin doonto oo ay ku dhiirigelin doonto inay ka qayb galaan horumarka oo ay ka qayb galaan waxbarashada oo ay ka qayb galaan talada dalka farxiyo waa hooyo waa gabar ku dhalatay gobolka mudug ku barbaartay marxalad kasta oo soo marayna goobjoog ka ahayd qayb kasta oo bulshadu leedahayna ka soo shaqaysay wasiiradii ku-xigeenkii haweenka markii ay noqotana door fiican ka qaadatay waxay ku tusaysaa sida aan raalliga uga nahay uguna soo istaagnay waxaanu mahadinaynaa shaqooyinkeedii badnaa hadday ahayd golo deegaan ama ay ka gaadhayba heer wasiir ku-xigeen farxiyo waxaan leenahay sidaan kuu sheegnayba annagu raalli baan ka nahay inaad ku guulaysato kursiga xildhibaannimada matalaad dhab ana aad la imaan doontidna waan qabnaa rajadeeda annagu haddii aan cod leenahay already haddaanba ku siin lahayn iyadoo saxiixan haddii aan yeelanana insha allah wixii aan leenahay adaa iska leh waxaan ku leenahay soo dhawow ilaahay idankiisana waxaan rajaynaynaa in ilaahay kuu aqbalo waxaan ognahay qofku marka uu og yahay baahida runta ah oo ka turjunta meesha uu ka tegay wuxuu kula soo noqdaa waxtar muuqda waxaana keenaya xogogaalnimadii uu ahaa annagana ilaaha boqorka oo caadilka oo xukunka qaybiya sida ilaahay quraanka in badan uu ku xusay xukunka waxaa bixiya ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadan wax uu bixin karaa ma jirto caawa anoo ku soo galay baa waxa weeye qalib alquluub ilaahay quluubta isagaa rogroga waxaan ilaahay kaaga baryayaa subxaanahu wa tacaala in quluubta dadka ku soo galay hoolka habeenkaas ama maalintaas ama saacadda hawshu dhacayso in qalbigooda ilaahay kuu rogo oo uu kugu guuleeyo oo weliba iska hel maaha arrintu keliya in aan ilaahay inuu kugu asturo aan kaaga baryayno subxaanahu wa tacaala waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa dadkan sharafta leh ee meeshii isugu yimid waxaan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay farxiyo yuusuf xirsi oo ah tiimkeenii in ay caawa tahay musharaxad dowladda federaalka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay wax badan kama sheegayo taariikh nololeedkeedii waa la soo maray waana ku bogaadaynayaa waxyaalihii ay soo qabatay farxiyo waana wax buuga ku yaala oo taariikhda iyadaa isqortee lama qoro waxaan filayaa taariikhda farxiyo inay qoran tahay oon ka wada dhargsanahay insha allah waxaan hadda usoo istaagay oo keliya waxay tahay in aan ugu hambaliyeeyo hankeeda iyo in aan ilaahay uga baryo in uu wixii khayrka ugu jiro ilaahay u sakhiro haddii ay heshaan ilaahay uu ku asturo baaqalkan uga diro ummadda reer puntland iyo kuwa reer mudug iyo kuwa weliba dadka doorta ama la yiraahdo ergada iyo odayaasha waxaan ognahay anagu hadda waxaan u baahanahay 2020 ka marayna waxaan u baahanahay qof anaga waxna tara oo karti leh oo aan meel seexan waxaan u baahanahay qof gobolka waxa uu u baahan yahay garan kara oo aan isleenahay maanta qofkaas haddii aad tiraahdo halkaas waxaas gobolka u baahan yahay Puntland u baahan tahay waxaan u baahanahay qof keeni kara waxaan hubaa inay hooyaday tahay qof kartidaas kale hawshaas qaban karta waxaan hubaa haddaad maqashaan hooyo waa meel lagu hoydo oo annaga inteena dhammaanteen haddii hooyadan ka mid noqoto golaha shacabka 2021-2025 kulligeen waxaan nahay dad gurigeeda seexan kara dhammaanteen haddii nin uu yahay ama hawshaas nin uu ku guulaysto qof naga mid gurigeeda ma tegi karo hal qof ama laba qof baa naga tegi kara laakiin ayada waa hooyo kulligeen waa dugsanaynaa dhammaan haddaan nahay reer Puntland iyo reer mudugba waxay noo noqonaysaa hooy odayaasha marka waxaan leeyahay waxa u baahnaa qof noocaas oo kale aan harsano ma doonayno qof maaragtay
aanu maaragtay la hadli karin waxba ku darsan karin 4 sano ka bacdina soo xasuusto yiraahdo meeshii aan ka yimid baa laga dooran jiray bal aan dib ugu noqdo farxiya soo dhawow farxiya aniga waxaan bartay 2006 ma sha Allah waa garanaysaa meeshaan isku baranay farxiya hawlihii oo dhan waxa ka tagteen baan inii sheegayaa oo inaan sheegin oo xusin farxiya intaysan noqon wasiirka intaysan soo gelin golayaasha waxay ka shaqayn jirtay ururada samafalka ah farxiya waxaan aqaanaa tuulooyin ay u qareemi jirtay qaarkood ay gelisay ceelal oo lagu baabi'i jiray xaraad daraadiis qaar ay iskoolaad u samaysay si fiican dadkaas abaal ugu hayaan dhabahaas hadaa martaan farxiyo faankeeda mooyaane wax kale ma arkaysa caawa hadday maqlaan farxiyo waa xildhibaanad bay rabtaa waxaan u malaynaa aryahay u soo gadi lahaayeen ma sha Allah waayo wax weyn bay u qabatay inta kale oo dhan intaasaa ka weyn oo maaragta dadka masaakiinta oo reer miyiga oo aan laamiga jogin ay ku leexatay oo garatay inay labada iyadoo waxaan ka shaqayn jirnay hawlahaas ma sha Allah farxiyo waa ku soo dhaweynayaa ilaahay waxaan kaaga baryaynaa saacada fadligeeda inuu naga aqbalo waxa hamigaaga ah oo aad jeclaatay inaad noqotid xildhibaan federaalka ah ilaahay inuu samada kaaga aqbalo kulligan haddaan isku tagno kuma siin karno haddaan ilaahay ku aqbalin farxiyo waxaan rabbi kuu weydiinayaa inuu kuu sahlo arrintaas hadday khayr kuu tahay wax badan oo khayr hayn baa jira hadday khayr kuu tahay ilaahay inuu kuu sahlo baan rabbi kaaga baryayaa waxa weeye farxiyo waa qof dadaala waa qof aad iyo aad bulshada uga muuqata waxaan mareynaa farxiyo ilaa 2000 macallimiin baa isla ahayn waxaan mareynaa inta dadka hadda sheegeen anaa ugu badiyaa oo malaynayaa 2000 iyo 1 ilaa 2005 waxaan isla ahayn macallimiin GECB dhaxaaw aadan baa kooda shaqeyn jirnay waxay ahayd farxiyo markay macallimada ahayd ay barnaamijka ka shaqeynayso qof fircoon aad iyo aad loo jecel yahay shaqo badan xarunta ka tilmaaman aad iyo aad hami weyn haysata waxaa jirtay 9 bilood mise 6 bilood baa 9 bilood ahayd 6 bilood ay ma garan karo tababarna loo sameeyay oo gabdhaha empowerment lagu sameeyay oo GCBD maxawaadan ay noo sameysay waxay ahaayeen gabdhihii ka soo baxay oo ku dhiirada inay sameyso NGO shaqeeyay oo xaqiiqdii noqday mid maxaa ku dhamir dhalay dad badan wax qabtay qaasatan aad iyo aad ugu qabtay dadka minority-ga ah gacan weyn u geystay sida hadda laga sheekeynayo kale ceelal haday tahay haday iskuulo tahay iyo haday ay tahay maxaa ku dhahaa wax qabad kale kadib markay macallimadii iska daysay macallimadeedii intaas waa dadaal bay ku jirtay waxay u ololeynaysaa gabdhaha darow oodka ama gabdhaha ka tag waxbarashada sidii loo dhiirigelin lahaa inay xirfado helaan inay noqdaan gabdho maxaa ku isku filan ayna saa uga taginin kadibna markay ogaatay inay jirto baahi badan ayay waxay ku birtay dhanka maxaa ku dhaha civil society-ga wax badan bay ka qabatay xaqiiqada halka aan ku soo koobi karin bulshada dhan aad iyo aad bay ugu qabatay iyadoo walibana gacan weyn xagga maxaa ku dhaha dhanka minority-ga aad iyo aad maxaa ku dhaha ugu ololeynaysa ururkaas oo ahaa urur minority u taagan haddana farxiyo ma ahan kaliya minority waxay u qabanaysay mudug ama magaalada Kaalkacyo ama gobolka mudug meelo badan bay wax ka qabatay oo aad iyo aad wax ka qabatay laakiin waxa ogahay oo ku kalsoonahay farxiyo inay tahay qof haboon oo ku haboon kursigaasi waxaana taa u cadeynaya inay tahay qof ehlu sharafa degan dhanka diintana aad ugu fiican aanan huban inay tahay qof asturan oo ah qofkii kursigaasi asturnaanta iyo sharafta iyo ilaalinta gabdhaha Soomaaliyeed magacooda iyo qiimkooda inay tahay waxaan leeyahay hadduu khayr u yahay ma dhahaye hadduusan u ahayn ilaahay ha uga dhigo khayr farxiyo kursigaasi maantiin waxaan rajaynayaa inaan baydankii ilaahay idinku guuleeyo hamigiina muujiya waa waayi kartaan in ilaahay idinkaga soo qaadana waa dhici kartaa laakiin dagaalanka ha la galo ololaha ha bato gabdhuhu waxa weeyaan aysan ka quusan rajada waxa weeyaan ilaahay bayna sharafayna karaameeyo xuquuqdana cid inoo diidi karta ma leh ilaahay baa quraankiisa noogu sheegay xadiiskiisa noogu sheegay marna waxa weeyaan sharafteena iyo karaamadena cid wax yeeli karto ma jirto cid hoos u dhigi kartana ma jirto cid xaq aan leenahay celin karto ma jirto xaq naga noqonna ma jiro waxa ilaahay baa inoo kamilay laakiin waxa looga baahan yahay kaliya socodka iyo orodka iyo dadaalka inaan dheerayno bas waxa weeyaan isku duubnaano ragga inta badan waxa la sheegaa amaba jirtaba inay kuraasta isku soo saaraan ويسمال قليان علشان واكو مال قشتي بالريسة أيوه جديد وإنت شقان كهرباء يفوز دمر كل لكن تعمل سمية وحد
inay kuraasta ragga la jecel yihiin iyaga laftikooda isloo galeen marka Ismaaciiliya wala gobolkan aan ka bilowno inaan gabdhaha maal gelino oo aan tijaabino haddaan kuraasta ka weynana waa ka cishan karnaa haddii waxaan u qaadaynaa vote marka waxaan leenahay ama uu ku habaaraynaa in Ilaahay uu ku fidneeyo marka laakiin aan ku dagaalano inaynu ismaal gelino oo soo oranayno kaliya ma inaan xaflada isku dhigno waa inaan ku dagaalano oo siyaabo kala duwan ugu oranayno oo odayaasha kula hardano oo waxa weeyaan socodka iyo orodka badan insha Allah waxaan leeyahay walaashay farxiyo wax badan baa laga sheegay adiga waa walaashayga yar weeye waa gabdhahan jecelahay waa gabdhaha aan naqaano muxuu ahaaye hankooda iyo waxa ay soo qabteen halkan waxaa fadhiya bureeqooyinka ay dhashay 6 bureeqo iyo 2 wiil ay dhashay anigu gabdho uma aqaan caashe iyo halkan waxaa fadhiya qofka la yiraahdo Xanaan maamadeed iyo Xaawo marka waa soo ag istaagi doonaan buraanaha dawaawgeeda halkan wuxuu ka waashay bureeqooyinkaas mid naga haya yaa marka waxa weeyaan farxiyo waxaa noo dhalay adeerkay aan jeclayn Ilaahay u naxariisto adeer bilig baa noo dhalay aabahay saaxiib ay ahaayeen waa ninkii ugu horeysay oo saddexaad oo boolis loo qoro Soomaaliya gaalkacay loo qoro taariikh buu ku lahaa sharaf buu ku lahaa karaamo ku lahaa ubixii uu dhalay bayna farxiyo kamid tahay farxiyo u garab istaagi mayna reer waxaanu istaagaynaa u garab istaagaynaa walaal waxaan u garab istaagaynaa saaxiib waxaan u garab istaagaynaa wax kasta oo ay tahay reer gaalkacooda dhan waxaan qabaa inay qof aan farxiyo ahayn aysan codka ugu rideen beesha hadda farxiyo wixii waa la beeleeyay waana la ka xumeeyay ilaahay baa naga saari doona waxaan leenahay beesha farxiyo ay caawa kursigeeda ay hankiisa u istaagtay walaalayaal waxaan dhihi lahaa farxiyo kursiga siiya waa huba 1,000daas inay in badan oo kamida farxiyo siinayaan sababtoo dunteeda yaqaana odagu waxa weeyaan qaaraanka uu ka qaataa odagu waxa weey markuu ku baahan yahay oo ku yeera marka uu muxuu ahaaye marti gelinayo dabka anaga u shidna anaga martida u maal gelina nagama maarmaan habeen iyo maalin bay noo yeeraan marka ma aha marka xilka la gaaray in la fogeeyo ma aha odayaasheeda waxaan leenahay walaalayaal gabdhaha u dhimriya gabdhuhu waa gabdhihiini waa dadka aad xukuntaan anagu waxaan ballan ku qaaday kalkii hore 2016 ilaa 8 saac habeenimo 9 saac habeenimo aan ka shaqeyn jiray waxaanu ku dadaalno ilaahayna nagu guuleeyay 24 gabdhood inay baarlamaanka fadhido 24 kaas fadhido qaar baan banaaqoonin laakiin waa ku faraxsanahay inay fadhiyaan qaar baa waxay yiraahdaan gabdho yaryar baa ku jira kuwa aan way arag ahayn baa ku jira oo waxaan dhahnaa imisa nin oo loser ha asba fadhiya intuu kaasba fadhiyo iyaduna ha fadhido kursiga noo buuxiso diyaar baa u nahay tiro iyo tayaba waa rabnaa hal gaar waagi qof iyo codkiisa la dhaho oo qof kasta oo tayala la raadsado laakiin ninka jawaan ku soo gatay intuu fadhiyo annagana gabadha yarta ah iyo islaanta iyo midda xaaladaheedu badan yihiin intuu waa noo fadhiyayaan marka waxaan idin leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa dad khayr qaba oo dalka iyo dadkaba noo hagaajiyo in ilaahay nagu aadiyo anigu waxaan ku soo koray meel wadaniyadu ay sareyso oo qofku hankiisa iyo dadnimadiisa uu wax ku noqonayay baan ku soo barbaaray oo aan bari wax xigsanayo maanta dhar jaalan qaba bari cadaan baa ina xirtaan rabaa bari jaamacad inaan galaan rabaa wasaaraddan rabay wakaaladdan rabo waan ku soo barbaaray tii anoo tahay baa dalku dhacay hadduu dhacayna waxaa imid meel ay qabyaaladu sareyso oo magacaana aqoon la isugu yeerayo taaba horta waxay ahayd awalan waxay dhiirigeliyay inaan socdo bal waxaan maxaa igu koobay magacaan waxba ii dhimay masaxbu ii sameynaya gabar baanahay dalkaan u dhashay waa imid suu raba ha noqdo balbal banaanka tag waxa dadku sheegayaan ma runba mise waa been waxyaabaha igu kalifay marka inaa isdiidaan galo waxaanahay hooyo ku guuleysatay barbaartii ubadkeeda ku guuleysatay waxqabadkii bulshadeeda wili caafimaad qabta laana ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye uu ku xisaabinaya markaad maskaxdaada iyo caafimaadkaaga cilmi ku siiyo bini aadamka qayb kamida ka afdalay hadaa la aaminsid waa wax lagu xisaabinayo taa darteed baa iri maadaama aad fursad ama hel ama waaso alla kuma hayo gal mujtamacaagana min deegaan ilaa heer gobol ilaa heer qaran ugu adeeg insha Allah haddii ilaahay kugu guuleeyo hadaa waayna dadkan wallahi wax la qabaa aadana waxaan uga mahadcelinaa walaashii Caasho dhiirigelinteeda Tag Foundation dhammaan asxaabteyda